wiilasha run ahaantii reemadu waa wiilal aad iyo aad u wanaagsan waa wiilal dhan kasta ku fiican u fahanteen oo karti leh oo dadnimo leh iyada lagama geli karaa xaaladooda ma fahanteen maantiina u jawaabo gabadhi tiri wiilasha mudug jacayl ma yaqaanaan waxa kale ta wiilasha reer gaalkacyoodka ama reer mudugga waxaan ka aaminsanahay inay horta wiilal qalbi adag oo dhagaxa daciisha xuntaayo malan saxaarku inuu ku dhagan ku haysana subhanallah gabadhan wiilasha dhaxdooda isku ruuxayso magaceedu waa Bushra Bayzani waxay ku nooshahay magaalada Gaalkacyo gabadhan Laafiyoonas waxay difaacaysaa wiilasha reer mudugga waayadan waxa soo badanayay hablo isku haysta wiilasha reer mudugga gabadhan Laafiyoonas boorsada ay wadato waxa laga bixiyay $4,000 maryaha ay qabtana waxa laga bixiyay $5,000 Bushra Bayzani oo difaacaysa wiilasha reer mudugga hadaladeeda waxa kamid ah sida tan halkan waxa ka salaamaya asxaabta dhamaan kugu xiran meel walba dunida daafeeda ku joogto waxaan ku salaamayaa salaanta assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib horta magacayga waxa la dhahaa Bushra Cali Xaaji sidoo kale ninaastay friendskayga ama family ii bixiyeen Bushra Bayzani ayaa la dhahaa waxaan rabaa horta inaan ka hadlo waxaan arkayay hablo isku jawaabay kuwa hadla isweeraysanay oo dhahayaan amal yaani reemadu waxay yihiin iyo waasaan iyo waa kan maantiina u jawaabo gabadhi tiri wiilasha mudug jacayl ma yaqaanaan waxa kale ta wiilasha reer gaalkacyoodka ama reer mudugga waxaan ka aaminsanahay inay horta wiilal qalbi adag oo dhagaxa daciisha xuntaayo malan saxaarku inuu ku dhagan ku haysana taas hadaan ka hadlo yaani labada hablood oo yaani hadal isweeraysan horta qofka wuxuu yahay isaga is og marka koobaad marka labaadna yaani deena dhahdo qofka xumaantiisa sheegtay adoona arag waa laga qurux badan yahay ina yaani qofka bilaanka waxa ku aragto inaad tilmaanti ma fahanteen waana laga fiican yahay dadka hadda qaar sida 90% marka fiirisi waxyaalo macnaha aan munaasab ahaan bay views ku raadiyaan ama caan ku raadiyaan hadii aan ma raadinaysa ama views raadinaysa waxa wanaagsan wax fiican aad ka hubsatay oo yaani aad ogtahay waxa kaaga iimaanaya iyo waxa macnaha kaaga iimaanaya kala saari kar inaa ku dhaqaaqdi marka labaad hadaan u soo laabto wiilasha ku hadla gabdhaha isweeraysan oo dhaayay mudug waasaan iyo waa kan horta mudug oo meeshan ka soo jeedno oo meeshan macnaha inta ku leekaana ku soo burbaarnay haliyayaasha Soomaaliyeed oo maanta dal iyo dibadba dunida daafeeda ka jooga waa meesha ka soo baxeen waana mudug mana fiicnaa dadka loo gafo dadka Soomaaliyeed wiilasha reer mudug khaasatan aad baan ugu faraxsanahay waa dad halgayaal waa dad hageesiina waana dad run ahaantii maantay meesha joogan iyo meesha ka maqan yihiin ba lagu tilmaami karo inay maqan yihiin inay joogan in la isku gafana ma fiicna qof walba qofkii hadda la soo socday mudug wax ka sheegan dib ha ula laabto wiilasha run ahaantii reemadu waa wiilal aad iyo aad u wanaagsan waa wiilal dhan kasta ku fiican u fahanteen oo karti leh oo dadnimo leh iyada lagama geli karaa xaaladooda ma fahanteen waa wiilal karti leh waa wiilal dadnimo leh waa wiilal geesiyaal aad iyo aad baan ugu faraxsanahay wiilasha reemadu in loo gafana ma ahan in wax laga sheegana ma ahan waxay soo qalmeen inaa ku tilmaanto waa laga qurux badan yahay marka aad iyo aad baa wiilasha reemadu halka uga salaamaya fadlan muuqaalkan dug soo gaar like subscribe-ka meel kasta gaarsiiyo waxba naga hagrinina waan in salaamay waxaan u salaam salaanta assalaamu calaykum waraxmatullaahi